يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. السلام الله عليكم صاحبيال كل وناكسن مركله soo dhawaada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay idinkoo caafimaad qaba iyo anigoo caafimaad qaba inaan halkaan isugu soo laabano oo aan xog isweydaarsano xogaha aan isweydaarsanayno marba waasi laakiin xogtan culeyskeeda ay leedahay balse marka hore hadii aad igu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad igu soo biirto oo hadii aad YouTube channel-kayga la socoto subscribe tiada kadibna aad gambaleelka furato muuqaaladan aad share garayso haddii aad Facebook page-ga la socotana follow-daada iyo like-taadu waa noo dhiirigelin hor u socosho ayay noo noqonaysaa saaxiibayaal xaadna istaagtoolah waa jirracooday raxma xanuunka ay marti kaliya muuqaalkan shaargareeya meelo badan gaarsiiya haddii aadan caawin karin gabadhan waxaan rabaa inaan ka hadlo sheekada calooliyowga ah ee urkutaalada leh ee Raxma Cabdullaahi Qamaam oo hadda ku sugan xiriyaha dadka qaxootiga ah ee Kenya gabadhan hooyadeed iyo aabaheed way dhinteen ugu horeyn aabaheed ayaa geeriyooday 8 jir ayadoo ah ayaa hooyadeed loo keenay kadibna way geeriyootay ayeeyaa loo geeyay way geeriyootay intaa oo xanuuna markay martay ayaa la yiri bal yaa gabadhan xiga adeerkeed ayaa loo geeyay adeerkii ayaa soo waday waxa uu keenay mid kamid ah xiriyaha dadka barakacayaasha ee Kenya waa 8 jir 10 sano markay gaartay ayuu kufsi ku bilaabay gubitaan garaacid jirdil balaayo dhan ayuu ku bilaabay ilaa jirkeeda uu sidaa noqdo dilka waxa iga daraa marka 10 sano gaaro inuu maxay ahayd kufsi ugu daro kufsiga la socdo dirjil dhibaato fara badan hataa dilku waa adkeysanaa laakiin markuu farxumaysta bilaabay uma adkeysan waayo inuu korkiga gubo igu duro maxaa la hayay nusbaaro bas waxaas korkiga duro anigana waxa maan garanayn waxa maan ogeyn ruux la leeyahay waa adeerkaaga oo haddana maxaa la hayay ku farxumaynayo dilka hataa macsuud waa iska caadi laakiin farxumaysi kufsi ugu daray dilka iyo jirdilka iyo xanuunjinta waxa uga sii darnaa inuu kufsi ugu daray faraxmayn joogto ah uu iska haystay waa ilmo waa 12 jir 13 jir 12 jir 11 jir markay daada 4 iyo 10 ka gashay ayay isku aragtay uur adeerkii ay u sheegtay xanuunada iyo problemada wuu dareemay waxa gabadha inay uur leedahay wuxuu bilaabay inuu caloosha ka garaaco haddaad sheegtid haddaan sheegin waa sheegi lahaa qof aan u sheegtaysan lahay isla markaas waa sheegi lahaa qofka u sheegana waxay ahayd eedadeena waxba iimayna qabanaynin marka u sheegay waa iska aamusaysay saas markay ahayd وصحون يدير جري ويجوبي جبنينك وقتي جبنينك إد وأنا داوع وأنا ساحة صحون وحنوصدي قعدت إكفشني قادي أنا زايد وحنوصدنا والله عاي ودر سمي زايد وحنوصدي منطقة فربضن محي إدري مرك ما عمدي أو حيودا استاخن كجينا والوصول بارايا أصلا مرك بريتانكي وقسينا أنا أور يوصل بحاي بس أنا ما أجي habeenkii uu soo keenay wuxuu sameeyay inuu maxaa idilo caloosha iyo garaaco markii ma garaaco caloosha iyo garaacaya madaxu iga istaagay marmarka qaar ceejina darbiga madaxa iga garaacaya meel uu dhaawaca iga yaalo waxaan sameeyay markaan garan waay wuxuu igu dhiibay kaadidiisa waaga markuu bariyano maxaa gacanta i dhiigayso madaxa i dhiigayo wixii dhan waan iska dabooshtay dharkayga iska xirtay anoo soo baxay wuxuu ii dhiibay kaadadiisa wuxuu dhahay markaa uu dhaho kaadadaada keen tan ku shub ani waan fahmi waayay marka aniga waan qaaday kaadadiisi maan ku shubin ee teedan dhiibay dhakhtarkan ku dhahay kaadadaada keen teedan dhiibay
teeda markaan dhiibatayda waxaa le uuraa leedahay habad uuraa leedahay aniga waa nahay meelna ma garanaya cid waxaan u sheegtay ma lahan cidaan u sheegtay ima aaminayso qofka og oo keli waxaa waa ilaahay iyo maxaa lahay aniga iyo maamadaas maamada waxay tiraa xaafadda ku noqo maxay lahayd daawi waxaas lagu siinaya أنا وأنا عبصود وحنا سمينا قرن وحافظة كسر نقطة مرك أنا مك حافظة كسر نقطة وحيو براك هذا مدي بتنايا عندها كذا مدي وين هذا ندي بين وحود دمعي إنه يسسبته كنين ويجي وحده وحنا سنتي فدي وحسكوا هاي كنيني فربنا يسيو إن وان ما بهاك لحظة إذا لي باش الله هاي برد إنه يسيو ويدفعون ومحي هذا مكي لو بركة صورتنا كبعد إنه جوك يقدر وعلاش لي يقرع مالك لي مقرع علاش يقرعه أنا وحاسب من مكان قرن واي واسكسر بحي حيادها سجلي حيادها مقلنا وحلا دوات الله شكتو إذا عضاي مراسة كمقل إن محلها يدد وح عاوي إن الجنان ساس درت مرة سلها إديها إدي دواتنا وشكتي أرنتي ذا لو ذاقي حيادها يعاوي سيسوك حسي عنقي دوات فربان والله عي حنونكي قول وحنا سنين عد قرب عن سنين أي سنجرين حيادي سيئة سو عنقي وان دالي عنقي إني نفق درأي قد عضو عذرك الله يكون دعان ها محلها قبدي محي هذي زادي حنوسته قبر عندنا محي هذي قبدي زادي حنوسته كل مركز ميل دقنا قبدي أنا هستي قبدي وحل سنة ما أقاني ناس كان ناس تمعون وحب ما يست وحكوا عن ما يست ناس كم محي هذي وحنا عن عنه أو محلها نوع كلا عصيني ناس كنت جوا محلها بيكوس حراني ذا يوجدني ساس واحد ماما كسي هايد ما كي في سنة دلوقتي استوى ساك حسي ماما كانت ماما هذا على جوجو وحب اسكو منهن muddo markuu caloosha ka garaacayay oo baabi'inayay oo caloosha ka tumayay oo caloosha ka garaacayay maxaa dhacay ma taqaanaan waxaa dhacay gabadhan in ilmihii ay ka soo dhiciyeen marka hore uu silciyay dhowr nooc uu ku sameeyay laakiin ilmihii waa soo dhici waayeen ayadoo dhiban oo dhiig baxaysa ayay baxsatay cid kale ay u tagtay maamadan ayaa gacanta ku dhigtay umul ah ilmo yar oo mujuqo haddana xanuunsan haysata gabadh yar oo xanuunsan haysato oo sida la ii sheegay dilkii iyadoo uurla lagu tuman hayay iyo tacdiyadii loo geysanayay qoorta maroorsanta oo farihii iyo gacmuhu kala maroorsan yihiin madaxa jugag badan kaga yaalaan gabadhan waa gabadh ay ku furan tahay barobalayn aan lahayn dhammaad waa qof aan habeenkii seexanin waa qof aan qoslin waa qof aan farxin waa qof ay dhibaatooyin qof bini aadan oo islaam ah oo jidh islaamnimo leh uu ka diira ay ku yaalaan annagaa la murugoona islaamka ruuxay arkaa la murugooda iyadoo saa tahay soomaali dhibkeedu ma yara hadal qaadkeeda badan wataatii bannaan uma bixi karto iyadoo securitygeeduma una sugnayn oo reerihii dhibaatada u geystay ninkii markuu fokaday la yidhi naagta aan dillo saynan ninkeenii aynu wiilkeenni ugu soo rogin maxkamad iyo maaragtay iyo kiis aynu ugu soo rogin oo iyagu ay qariyeen yee haddana waxay qabtaa aflagaado iyo handadaad waa qof aan bannaan u bixi karin waa qof aan maaragtay bulshada wax la qaybsan karin waa qof ilmo xanuunsan haysata waa qof barbalayn dartii sankeeda dhiig ka socda oo say u joogta sanka dhiig ka iman hayo oo isbitaal loo dhigahayo tiraka 4 jeer tiraka 5 jeer ilaa bishii rabaa ilaa inta u dhaxaysa isbitaal bay gasho inta ay taale waxaasuna waa barbalayn ku furan iyo dhibaatooyinka fikirka iyo walwalka iyo mashquulka iyo qalbi xumada iyo niyad xumada iyo dhibka haysta Allah subxaanahu wa ta'ala baa dhibka bixiya waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed waad caawisaan dadka Allah idin caawiyo qof kastaan aakhirada iyo adduunkiisa wixii uu geysto isaga iska leh wixii uu sadaqadaysta isaga iska leh gabadha yar oo hooyo haysanin oo iyada oo 4 bilood iyo ma aqaan wax la mid jirta oo ay hooyadeed dhimatay aabaheedna iyada uurka ku jira uu dhintay arxan dadkii ugu xigay ay sidaan u galeen oo tacdiyadan iyo dhibaatadan ay u geysteen waxaan idin ka codsanaynaa Ilaahay dartii ku caawisaan alla dartiis wax ka weyn
oo la isku caawiyaa ma jiro maalinta qiyaamo qabiil ma jiro in hebel ma jiro fulaan ma jiro anaa ku dhalay ma jiro waad ila dhalatay ma jirto saaxiib baynu ahayn ma jirto waxaa weeye nin walba wixii uu maalinta uu hormarsaday unbaa maaragtay gadaal uga imanaya waxaan idinka codsanaynaa oo aan idinka codsanhayaa anoo hooyadii Soomaaliyeed ee gabadha hadda gacanta ku haysay inaad gabadha Ilaahay darti aad ku caawisaan ilmaha yar ee xanuunsan midhikaalka haysata iyaduna xanuunsan oo qalbigana ka xanuunsan korkana ka xanuunsan meel indha ma leh meel ay u baxda ma leh meel ay u socoto ma leh cid ay arxansata ma leh cid ay garabsata ma leh hooyo ma leh aabba ma leh ilaa Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta oo maartay u joogo ay leedahay kan maanta ka adkaysan wareey waa wiil Soomaaliyeed Allah caawiye waxaan idinka codsanayaa si naxariis leh cod dheer iyo cod gaaban inaad gabadha masaakiinta aad soo caawisaan ummadda Soomaaliyeed muxsiniinta ah Ilaahay wuxuu sahlayo dhibaatada iyo xanuunka inta leeg cid walba oo bini aadan ayuu ku dhici karaa laakiin waqtiga iyo waayaha ayaa u qoray gabadhan Soomaaliyeed sidaa daraadeed saaxiibayaal inagoo og in gabadhan intaas oo xanuun ay martay waxaan idinka codsanayaa in raxmo aanu ku fiirsan dhibka iyo murugada oo kaliya inta daawano indhaha ku fiirno aynu ka gudbin laba option ayaa ku furan gabadhan lambarkaas shaashada ku qoran ayay leedahay oo lagu soo qoray wac hubi xaaladeeda weydii haddii ayada ay noqoto caawi oo waxa uu awoodo u dir balse ugu horeyn wac iska hubi waxaan kaloo ka codsanayaa haddii aadan wax awoodin inaad muuqaalkan u sheer garayso oo meelo badan aad u gaarsiiso si loo caawiyo ogow qof adiga daraada haddii uu ku arko ama adiga sababtaada haddii uu ku arko waxay la mid tahay inaad caawiso ajirka qayba ka leedahay wax anaga dhaqaalaha kama rabno waxba kama rabno kaliya waxaan rabnaa in la caawiyo balse waxaan dardaaran ah in la waco inta aan caawinaada loo sameyn ka hor gabadhan oo xaaladeeda ama marxaladeeda la ogaado walaalayaal kufsigii iyo dhibaatadii wuu badanayaa xilli xun ayaa lagu jiraa qof walba oo nagamida ayuu dhib gaari karaa dhibaatadii aan isku fiirsanin muuqaalkan waa lay soo diray shalo dhan lay soo diray xalay ayaan daawaday wallaahi bilaa inaan seexdaan rabay hurdada waa iga xumaatay xanuunka gabadhan ay martay jir waa la gubay waa la garaacay waa la tarjargaray oo la cinqaabay maskax ahaana loo dilay dhinac walba laga baabi'iyey ilaahay ha u boogadhayo ilaahay ha u haaradhayo isaga ayaa quluubta iyo jirka badbaadin karo laakiin shakhsiga noocaas u dhaqmay waa mid xitaa waalidnimada nacsiinaya bulshada waxaana codsan lahaa in go-aan laga gaaro oo tilaabo laga qaado nolosha adduunyada u jeedo waa cad iyo madow maalinba si waa laakiin muhiimadda ugu ballaaran waxay tahay inaad ogaato in maalinba qof caawinaad u baahan yahay maanta raxma caawinaad u baahan inaan caawino muuqaalkan maadaama uu yahay muuqaal urkutaale iyo xanuun badan intaa ayaa kusoo gabagabaynayaa